بسم الله كلمة waxay ku saabsan tahay ay daba joogtaa habeenkii aanu soo dhaafnay isniinta ahayd oo anaga jeedinay kelimo ku aadanayd Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame khaladaad diineed oo galay kelimo ku saabsan oo anaga soo jeedinay habeenkii isniinta ahayd ee darsiga u dambeysay xawana waa sabti soo sidaa ma aha waxaynu tilmaannay habeenkaas bifadli illaahi wa caawnihi lix qodob oo ku dhacay ina Warsame oo ku jirtay hadalkiisii uu ka jeediyay Jarmalka qodobadaasi waxay isu dhex yaaleen qodobo gaalnimada ku cad kuwa daahir ku ah iyo kuwa min baabi al-ilzaam wal-luzum ah waxoo dhan baynu isku qiimeynay xukumkii sharciga nagu aadanaa baynu qadinay hawshaasi meeshii ku dambaysayna waad la socoteen waxaa soo gaadhay oo xigay isla habeenka qudhigiisa anigu kelimada aan jeedanayay ayuu ina Warsame asaguna kelimo jeediyay marka live ay ayadoo xilligaad hadlaysiiba asaguna hadlaayay bay xirtu ugu yiraahdeen laakiin anigu maalin kadib baan dhageystay dhowr goorna hadalka waan ku celiyay marka wixii aad ogeydeen ee hore maxaa iska bedelay baynu caaw wadaagaynaa insha Allah hawshu masjid hora oo xukumka hore in Cabdishakuur saaray mise Cabdiraxmaan buu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur xukumka hore inuu saaray miyaynu ku wadaynaa mise waxba isbedelay bay hawshu caaw ku saabsan tahay hadalka dambe uu jeediyay habeenka isniinta uu jeediyay ina Warsame si guud waa hadal ka qiimo badan kana wanaagsan kii hore uu siiyay BBC-da aanu marka aan tacliiqiyay aan ka hadlay hadalkaasi si guud wuxuu ku cadeeyay in khalad walba oo ku yimid hadalkiisii Jarmalka uu ka jeediyay uu ka laabto ka toobad keenay ilaahina uu ka baryahayo toobada inuu ka aqbalo dadka muslimiintana ay cafiyaan cid walba asaga taageertay ama mucaaradayna cafis buu weydiistay hadal yaraha quruxsan oo sidii Soomaali lagu yaqaanay ayuu la yimid laga yaabo in balaayo u qarsoon tahay laakiin daahirkiisaan inagu hadda inoo yaala dhowr qodob marka oo ka kooban aan ku soo ururiyo waxaan u jeedo caawa inaan baraarujiyo qodobka koobaad manduumada dimuqraadiga mucaasirada uu ka tirsan yahay ina Warsame waxyaabii horaan aan ku haysanay kama hadlayna caawa xugum hore oo manduumadaas iyo asaga iyo wixii la halmaala ay leeyihiin kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa xadgudubkii goonida asagu uu geystay iyo xukumkii khaaska inuu saaray asaga khuseeyay laba marka xaajoon islahay ha isdul saarina sida aan arkay caamo wax isku khaldaysa iyo wadaada wax labaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala gaalo si guud buu u sheegay kuwa gooniba oo la baxay si guudna waa loo sheegaa kuwana gooniba loo magacaabaa daa'ifo iyo jamaac xugum la siiyay iyo xukuumad xugum la saaray iyo nin gooni loo baacsaday way kala duwan yihiin waxaan caawa ka hadlayno horaana ka soo hadlay waxay ahayd baacsi gooni oo ku aadanaa ina Warsame xadgudub khaas oo geystay dartii meenu isfahanay ina isfahanan u malaynaya taasi marka waxay ku salaysan tahay qodobka markaan hoos ooga dago wuxuu ku salaysan yahay ma dhici kartaa aadamuhu